Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga seetii ma fiicantiin caafimaadkiina? Ani waa idin fiican maasha Allah. Ciid mubaarag aan idin leeyahay dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarag aan leeyahay. Nabad ku ciida maasha Allah. Inkastoon jeclaan lahay muslimiinta oo dhan hal maalin intay wada ciidaan maadaama laba maalin la kala ciiday hal maalin inay ciidaan aan jeclaan lahay. Laakiin ma dhicin oo waa la kala jabay laba maalin la kala ciiday. Marka ana waxaan ku jiraa dadka maalinta u horreysay ciiday kulley ma aqaan maalinta labaad waxay igu noqon doontaa qalle igu noqon doontaa filaya. Marka waa idin salaamay ciid mubaarag idin leeyahay dhammaantiin waa idin jeclahay. Haddaa nagu cusub tahay fadlan subscribe-ka noo saar like share intaas waa codsi xagga walaashin ka imaaday waa sacdiyo idin leh ciid mubaarag. Markaan halkaas uga baxay walaalayaalow maalmahan dambe waxaan ugu soo badanahay dilmo nin naagtiis dilaaya naag ninkeeda dilaysa wallaahi arrin murugo badan waaye. Ma aqaan dadka ehelada wax isku jiidiyay oo istusaan garan lahay cadaawad intaas dhan waxa dhex dhigay ma aqaan aniga ma fahmi kara. Maxaa yeelay qofka kugu dhow aad dilaysaa hay naagtaada dilaysaa ninkiya naagta dilaysa mar naagta ninka dilaysa mar waxaad maqlaysaa naagta la gubay naagta wax gubtay mar naagta la gubay wallaahi waa arrin aad u murugo badan hadda nin baa naagtiisa dilay oo muqdisho ay ku nooshay gabadhan oo xag oo la dilay maanta muqdisho ayay ku nooshahay wallaahi ma aqaan wuxuu sababta lagu dil lama garanayo. Waxaa la sheegay in ay maalmo ka hor kusoo qortay facebookeeda page ay ku leedahay inay kusoo qortay iyadoo ammaanaysa ninkeeda haddana maalmo kadib wuu dilay ammaantii waxaaba ka dambeysay dilmo uu dilay marka ma aqaanahe ma ammaantaas la ammaano darteed ma loo dilay ma ahana ammaanta baasi maba arkin miya oo cadaawo kala labada kasii dhexeysay ma la garan kara inay ahayd baa la sheegay bahyar oo naag ay ka horreysay kala ayadana ay mar dhow lama guursan naftarkeeda dhowr ilmo ay u haysaa ayaa la dhahay marka ma aqaanahe walaa arrin yaab badan waayaba wixii sababay oo dilka sababay lama garan karo ilaa hadda wax garanaya ma lahan wixii dilka sababay laakiin inay gabadha uu ninka dilay unbaa la sheegay oo asagana jeel ku jiro xiran yahay wallaahi wax fiican ma ahan Soomaaliyeed arrintan way nagu soo badanaysaa in wacyigelin fara badan aan sameyno ma ahane si lagu stop gareeyo maxaa yeelay haddii shub laga dhaha arrintan waaba sii faafaysaa wax fiican ma wax aad u foolxun waaye marka waxaa waaye haddii aan wacyigelin fara badan la sameyn arrintaanaytan arrin oo faraha kasii baxaysa ay tahay dhaqan iyo diin aan u leena ma aha arrintan waa arrin nagu cusub diiniyan uma lihin dhaqan uma lihin wax hadda gadaashan dam nagu soo badanayo waay oo awal Soomaalida ku cusubba dhaqan haddii la Soomaalidu way ku cusubta maxaa yeelay wax nagu cusub oo waxaan wax anaga aan hore u garan jirnay ma aha gaalada iyo dadka muslimka aan ahayn baa lagu garan jirnay naagtiis dish waa maqli jirnay un TV-dii waxaasan ka maqli jirnay un dadka ajnabiga ayoo leeyahay dadka nin baa naagtiis dilay ay caruurta dilay naag baa ilmaha ninkeeda dishay iyo caruurta dishay waxaas waa un maqal bay nagu ahayd ma ahane wax anaga naga dhaxdhac maba ahaan jirinba marka ajnabigu bay ka dhaxdhici jirtee hadda anaga naga dhax bilaabatee wallaahi in wacyigelin fara badan la sameeyo ma ahane haddii aan la sameyn way sii waaba soo badanaysaa waxaa sanadkan gudihiisa hadda meeqaa maqal way badan yihiin wax badan maba la xisaabi karaba naagaa ninkeeda gubtay nin baa naagtiis dilay naag baa ninkeeda dishay waxaas ba hadda soo badanaya maalmahan dambe marka waxaa moodaa inay nagu soo badanayaan aad noogu soo badanayaan aan moodaa marka walaalayaal wallaahi qof dil horta waxaa waaye wax ka horeeyay ma laha qof kala gacantiisa ku sababsaday halis waa xukunka ilaahay og laakiin sa anaga qiyaasayna waa dambi weyn waxaa waaye fal ka xunba maba laha falkaas qof muslin aad qabatay ama gaal wuxuu ahaadaba aad dishay gacantaada ku dishay gacan ku dhiigilaabat sooma gacan ku dhiigila aad noqotay maxaa yeelay gacantaada qof ku sababtay waaba dishay qofkii haye maxaa kaa horay marka adigana adduuni aakhara waxaa cadaab waa adduunka hadda naftarkiisa feer cadaab waa kuma noolaanayso nabad kuma joogayso kuma socon kartid waa kaas ama waa lagu xirayaa ama adig naftarkaada waxaa waaye cumri xirig waa maxaa faa'iida marka cumri xirig waa qofka dhinta waaba dhinta wuuba tagayba adig laakiin cadaabta adduunka iskugu keentay gacantaada iskugu keentay cumri xirig maxaa dhaantaa ku jir waa meeshaasayta meesha lee ku dhimanaysaa marka waa arrin aad u falxun wallaahi wax laga naxa waaye marka aan ka waantowno halaas ayaa maanta usoo galay dhammaantiin waa idin jeclahay maasha Allah barnaamijku waxaa idin leeyahay ii sheegareeya teedi kale waxaa idin leeyahay commento quruxda badan waa arkaa ii soo qortaan meesha kasii wada idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan qalbi idin jecel kusoo dhawaada walaalaha cusub fadlan haddii nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar barnaamijka ii sheegareeya waa cosi walaashin xaggeeda ka imaaday ciid mubaarag idin leeyahay dhammaantiin waa idin jeclahay maasha Allah
waxaa waaye like-ta comment-ida sheega waxaas dhan waa dhinaciina waana ku mahadsantahay sida qurux badan igula socotiin bye bye idin leeya waa idin jecla bye bye walaalahayga waa idin jeclaha ii noolaada ciid wanaagsan